بني آدمي هدانو إلهي أود آنو كهيسا كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق روح سمدا لغا سو توري oo shimbiruhu hawada ay ku qaybsadeen kama duwana marka inaad ilaahay ka magan gasho ibliiska ayuu ilaahay kaaga badbaadinayaa awoodaynu iskaga celinana male ama haysano illa billah oo inaga nidhaahna la hawla wala quwwata illa billah marka ruuxa mu'minka ilaahay ka magan gala waxba ma yeeli karo illa ibadaka minhumul mukhlasin wuxuu ballan ku qaaday waan ambinayaa adoomaha illa ibadaka minhumul mukhlasin a'uudhu waxaan magan galayaa billahi allan magan galayaa allah maxay tahay marka allah waa ism u gaar ah ilaahay kelidii cid la bixi kartaana ma jirto waxay tilmaamaysaa uumaha adduunkan oo dhan khalqay magaciisa weeyaan maxaa farqi u dhaxeeya allah iyo ilaah maxaa farqi u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya waxa weeye allah waxay u gaar tahay ilaaha xaqa lagu caabudo keliya ayaa ismka iska leh waa ism calam ah oo u gaar ah ilaahay kelidii lagu sameeyo weeyaan ilaahna waxa looga jeedaa wax kasta oo la caabudo xaq ha lagu caabudo baatil ha lagu caabudo ilaah baa ka la yidhaa erayga ilaah waa wax kasta oo la caabudo baa ilaah la yidhaa ama xaq ha lagu caabudo ama baatil ha lagu caabude marka a'uudu bil ilaahi lama oran waxa la oranayaa a'uudu billaah ilaahay baan magan galaya allah baan magan galaya min ash-shaytaani waxaan ka magan galayaa shaytaanka madaxa adag leh ee macangaga abaan ka magan galaya macangagii arrajiim la xooray ee laga dheereeyay naxariista alle bismillaah abda'u waxaan ku bilaabayaa kalaamkan iyo qowqan quraankan kariimka abda'u waxaan ku bilaabayaa bismillaah magaca allah baan ku bilaabayaa allihii arrahmaani naxariista ballaaran lahaa adduunyada gaal iyo islaamba rabbi waa u naxariista oo waxa ay ku kala socotaa waa raxmadda waasica ah arrahiimi allaha naxariista khaaska siiya mu'miniinta weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala rahiim wuxuu u nisbeeyay mu'miniinta oo kaliya في آية من القرآن بيكوتا الله إلهي وحو أرانيا وكان بالمؤمنين رحيما إلهي مؤمنين تا أيو رحيم كودي يهي مركا لبدا إري لبدا بنا حريص بيت الماميان لكن حريصتا ويكلا واسع سيهينو ويكلا خاصيهن بانو جيدا ورحمانا وانا حريص قالي إسلام با أي haystaano ilaahay ugu naxariista adduunyada inta la joogo rahiimna waxa weeyaan waa xanaano iyo daryeel si gaara uu ilaahay ugu fidiyo inta ku xiran magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ficilkaygan iyo camalkayga iyo qowlkayga allaha raxmaanka ah ee naxariista ballaaran arrahiimi ee naxariista gaarka ah iyo xanaanada gaarka ah mu'miniinta siiya alxamdu mahadnaq lilaahi alla iskale rabbilcaalamiina carre edeg dhammaanteed uumiyaheeda allaha u rabbiga ah alcaalam af soomaali waa carre edeg weey carre edeg dhammaanteed allaha u rabbiga ahee iska leh ayaan mahad u naqayaa allaha carre edeg dhammaanteed rabbiga u ah ee barbaariyaha u ahi ee naxariistaha u ahi ee maaliga u ahi rabbi maalik waa lagu macneeyaa khaaliqna waa lagu macneeyaa murabbina waa lagu macneeyaa waa kii abuuray waa kii barbaarshay waa kii hantiilaha u ahaa allaha hantiilaha ku ah ee aan cidilo sheegan carre edeg dhammaanteed ayaan mahad u naqayaa الرحمن إله النحريست واسع عليه الرحيم النحريست خاصك عليه أيان مهدنق علينيا مالك يوم الدين
allaha maalig mulkigooda leh iska leh ee hantiilaha u ah yowma addiin maalinta diinta ee yowma alxisaab baa laga wadaa maalinta la isxisaabinayo marka maalik baan aqriyo alif baan ku taagay maalikna waxa weeye hantiilaha waxa qiraa'o kale oo sabciye ah malik baa iyana ah wamaaliki yowmi iddiini raawiihi naasirun labadaa sheekh baa iska leh maalik melikna culimmada kaleoo dhan baa akhrido toddobada ka mid ah marka melikna waa boqor maalikna waa mulkiile hantiile waxaan mahad u naqayaa rabbiga iyo barbaarshaha iyo khaaliqa carro edeg dhammaanteed naxariis badnaha naxariista gaarka ah leh boqorka maalinta xisaabta ayaan mahad u celinayaa iyaaka adiga oo keliya un baan rabbiga sifadaa lahow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga un baanu kelida nastaciinu kaa gargaar dalbanaynaa haddii ay sidaa tahay ihdinaa isu kaa dhiibnaya allow nagu hanuuni assiraata almustaqiim jidka toosan eed raalli ka tahay nagu hanuuni jidka toosan ee raallida ka tahay waa kee siraata aladiina waxaan u jeedaa haddaan si kale u edhaahdo waddadii aladiina kuwa ancamta aad u nicmaysay aad u raaxaysay calayhim dushooda allahayow kuwaa deeqdaada siisay dushooda aad yeeshay deeqdaada ayaan ka wadaa dariiqay raaceen hayrilmaqduubi ma aha kuwaad u cadhootay dushooda waladaalliina mana ahan kuwii habaabay kuwa ilaahay u cadhooday baa yahuudda laga wadaa kuwa habaabayna nasaarada ayaa laga wadaa ciddan aynu dalbanayno waddadooda inaynu raacnana maca aladiina ancamta calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin maca aladiina ancamta calayhim cid qowmka loo nicmeeyey aayaddaasaa tilmaantay safka aad doonaysa inaad ka mid noqotona ee aad mar walba salaada dhexdeeda aad ilaahay ku baryayso inaad ka mid noqotona maca alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin afartaa qowm ayay soo gelayaan oo aad ilaahay ka baryaysaa waxaad ilaahay ka magan gelaysaa inaad ka mid noqoto dariiqii yahuudda inaad raacdo iyo dariiqii nasaarada yahuudda kuwa lumay baa la yidhaahdaa nasaarada yahuudda kuwa loo cadhooday cadho ilaahay ku dhacday baa la yidhaah nasaarana waxa weeyaan waa nimanka ku abtirsada nebiyullaahi ciisa ee inuu ilaah yahay aaminsan ama ina ilaahay aaminsan weeyaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim qul acuudu birabbi اnnaas maliki اnnaas ilaahi اnnaasi min shari اlwaswaasi alkhannaas aladii yuwaswisu fii suduuri اnnaas min aljinnati waannaas suuraddan iyo suuradda ka horaysee la yidhaahdo alfalaq isku mar bay soo degeen waana 11 aayadood labadaas suuradood waxay ruuxa muslimka ah ay siinayaan difaac aan rasaastiisu abidkeed ka dhammaanaynin makhluuqa ilaahay uumay oo dhan noocuu yahayba in sharkiisa ilaahay ka badbaadiyuu ku magan gelayaa ilaahay labadan suuradood waxaa la yidhaahdaa markii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam loo tashaday ee yahuuddu ay damacday inay sirxaan nin bay soo adeegsadeen labiid la odhan jiray ninkaa labiid iyo yuhuudi buu ahaa sixirku aad iyo aad u yiqiinay waxaanay damceen nebiga inay sixir ku naanaabiyaan markii ay sixirkii u soo xidheen oo ay nebiga inay sixraan isku damceen waxaa soo gaadhay waxoogaa neeftii sixirka ayaa qadar saamaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wuu caajisay oo xoogaa wuu yaro siicsiic buu ka bixi waayey markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u soo dejiyey labadan suuradood magacoodana waxaa la ysku yidhaah almucawidatayn labada lagu magan galo ayaa la yidhaahdaa qul waxaad tidhaa nebi allow acuudu waxaan magan gelayaa birabbiinnaasi bini'aadmiga iyo insaanka allaha uumay baan magan gelayaa melikinnaasi boqorka bini'aadmigaan magan gelayaa ilaahinnaasi ilaaha xaq lagu caabudo ee dadka abuuray baan magan gelayaa bini'aadmigaa marka hore la xasuusinayaa in axadka barbaariyey ee abuurtay ee arsaaqa inuu alle yahay cid kale aanay abuuran
وقل أعوذ برب الناس باي كترجميسا ملك الناسنا waxay ka tarjamaysaa waqtigii quraanku uu soo degayay uunka dhamaantii mugdi bay ku jireen adduunyadana waxa ku amar ku taagleynaya niman boqorra sheegta oo aan bini'aadmiga ra'yi iyo maskax midna u ogolayn oo ihaanaystay wax kale may rumaysnayn waxay aaminsanaayeen boqorrada adduunka ka taliya ee Rome iyo Faris ka talin jiray ayay aaminsanaayeen dadkan quraanku ku soo degay carabta ana waxa si toos ah u maamuli jiray nimanka Romaaniyiinta la yiraahdo ayay aad ugu xidhnaayeen boqorrada Rome ayayna ka amar qaadan jireen markaas Ilaahay wuxuu qalbigooda ka daadinaya dareenkii ahaa bini'aadmi baa malik noqon kara markaas Ilaahay wuxuu tilmaamayaa boqorka runta ahi inuu Ilaahay yahay masalada labaad ee Ilaahi naasi كعبدا صدح بقولي اللحدن صنم أو إلهي لقد نكتبها سدا أو جارا إله كلام ضدكم ما يرمى اثنين ستة قلبي جود اللوجا هرجفه أيو ربي وحو أتل ماما يا إله حق لجو عابده إنسان كإله أوه إنه ربي واحد كأيه سدا سامر كالله يسود بدقي يا إذن ربي يا إذن أبو ري الله يا بقر كينا الله إله حق إذن كل إنا عابدا واكما والله oo dareenkii ku daambusay ee ku raagay quluubtooda ragaadiyay ee boqor kaloon bini'aadmi ahayn ma jiro iyo ilaah kaloo aan sanam ahayn ma jiro ayaa laga hurgufaya oo waxay oran jireen ilaahay waxa ka awood badan boqorrada oo ilaahay wuxuu xaq u leeyahay kaniisadaha kaliya inuu ka taliyo banaanka kalena ilaahiyada kala iska leeyahay boqorrada dacma lillahi lillah wama liqaysar baa halqabadkooda ilaahay ma kaniisadaha u daa banaankana waxaad u daysaa boqorrada tii sida ahayd baa la leeyahay maya macbadkana ilaahay baa u rabbiya banaankana ilaahun baa ku ilaah laba ilaah malihid qul waxaad kiraano ya allah أعوذ وحن مجنجل يا برب الناس ربك ضدك ملك الناس بقرك ضدك إله الناس كحق لجو عابده ضدك أبو ريبان مجنجلية من شر وحن كم مجنجلية شركه الوسواس مدك حمانتك كو أقرية قلبك بنا آدمك أيا وسواس ليلا الوسواس مدك يعني وسواسية وسوسك كوري ده هذا الله إيو فعايشة قلدن كو أقرية قلوب الناس الخناس قبشة بدن له كلمة داس كوسو نقول مايسو الخناس من الخنس باي كتمدو وادوم الشدا مد كدوم الشدا بدن له الشيطان كلو جيديو ككليته إنسي أبا وحن مجنجل يا إله سفوين كالا من شر الوسواس ومدك وسواسية تشويش ككفرة قلوب تبين آدمك الخناس مركل لفهمه قبضه الذي كاسو يوسوس قلوب تفسهادية الذي كاسو يوسوس فسهادية في صدور الناس الله بها ضدك أو من الجنة والناس أو ولبا السجود شرا جنة وليه كقلوب تفسهادية والناس بنا آدمنا وليه مد كقلوب تفسهادية أو شيطانكو شياطين الإنس والجن اللي بدوا ويشران وحانا شربضا شيطان الإنس أو هذه الروح حكم قيس يهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاقوابا مايو إلا أدقوان رغاني ملك قادة موياني مركا لبضا الشيطان وحا شربضا شيطان الإنس قل وحاتنا النبي الله أعوذ وحان مجنجليا برب الفلق وحكستو أوكلا دنبالمه وحكستو أوكلا دلاعة إله أبو ريبان مجنجليا واقو دلاعة نلول هرلا كدلتا وكحنتو وي دلاعة حيوان باكسو دحبحا إنيوه وي دلاعان جيدا كسو دحبحا وحلاليا وحي كلا دنبالمئن يعني كلا دلاعة الله الرب أيان مجنجليا من شر ما خلق وحكستو أومي شركو دان كمجنجليا ومن شر وحن كما جنجل يا شركة غاسق مجدجو إذا قرت وقبأ وصاقل إذا دخل وقبأ أي دخل غاسق نوى مدوج هبينكي وحن كما جنجل يا إلهي هبينكم مركو الدمو شركة وليه هبينكي توجو اسمركا سوجو ذا
masaskuna markaasay dariiqyadaysa soo taagaan habar dugaagoo dhani markaasay ugaadhsadaan ninkii shirqool doonayaa mugdiga habeenkuu la haadsada ninkii hasaawe iyo macaasi doonayaa habeenkii ayuu soo baxa inta badan macaasidu wakhtiga madowga iyo habeenkii ayaa lala haadsada waxaasoo dhanna waxaa ka imanaya cadho ilaahay baa ka askumaysa ومن شر وحان شر بان كما قنقل يا إلهي غاسق مقدق هبينمو إذا قورتي وقبأ صوقلو ومن شر بان إلهي كما قنقل يا النفاثات كوا أفوفا في العقد قنتمها سحر كا كوا إرياض سحر كا كوا أفوفا ضدك سحرية شركو دان إلهي كما قنقل يا ومن شر بان إلهي كما قنقل يا حاسد روح حاسد كيه إذا حسد مركو حاسد نما أدقاقو قسمة إلهي بانو رالك أهين حاسدك wixii ilaahay qaybiyey buu ka dhirfayaayo uu aad iyo aad uga ulmaya cadho iyo umal buu ka qaadayaa haddana waxba kaama tari karo isaguna waa isgubaya qalbigiisuna waa gubanaya camalkiisina wuu burburinaya xaasid baa la yidhaahdaayo adduunyadan waxa fasahaad ka dhacaya waxa weeyaan baqalimo dhasho wax dhalana ma doonto un weey bismillaahi araxmaani araxiim qul waxaa tidhaa nebi allo huwa ilaahay allahu waa alleh axadun suuraddan suuratul ikhlaas baa la yidhaahdaa 3 jeer haddaad aqrido fadliga qur'aanka oo dhan oo la aqriya baad helaysaa ikhlaasna waxaa laga wadaa waa suurad bilow ilaa dhammaad ilaahay towxiidkiisa ayay caddaynaysaa waxaanay jawaab u tahay markay quraysh intay nebiga u yimaadeen oy gacanta qabteen oo ay yacni geeyeen kacbada ay yidhaahdeen annaga ilaahyadayada waa wax la fahmi karo kani waa hebel wuxuu ka samaysan yahay naxaas kani waa hebel wuxuu ka samaysan yahay dahab kani waa macni ilaahi hebel ah wuxuu ka samaysan yahay dhoobo kani waa hubel oo wuxuu ka samaysan yahay dahab kani waa hebel oo wuxuu ka samaysan yahay fidda sif lana ilaahaaga wax nooga sheeg noo sifee oo nasaara u timi oo yidhaahdeen annaga ilaahyaga waa la yaqaanaa waa ciise oo haddana nasaara yani saas markay yidhaahdeen bal ilaahaaga wax nooga sheeg ayuu rabbi isa sifaynaya tabaaraka wa tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa huwa allaha i weydiinaysaan allah waa allaha magacaa leh axadun keli baa ku yahay abuurka uunka oo idil keli buu ku yahay ilaahnimada allaahu waa alleh assamadu waa ilaaha la irkado waa ilaaha lagu tiirsado markay dhibaata timaado loo irkado weeye assamad waa ilaaha la irkado ee dhibaatooyinka idinku dhaca aa uga qayshataan markay ilaahyaalkiinnu waxba idin tari waayaan lam yelid haddii ilaahyadiinnu ay wax dhaleen sida ciise oo kale maxay la dhalay lam yelid ilaahay waxba ma dhalin walam yuulad waxna ma uu dhalin walam yakun mana jiro oo ma haysto lahu ilaahay uma sugnaanin kufuwan wax aynigiisa ahi ma jiro wax dhiggiisa ahi ma jiro axadun halna ruuxna allaha ka yeelee wax ilaahay kufkiisa ah oo aynigiisa ah oo noociisa ah oo ku awood ah oo ku sifiihi ma jiro walam yakun muu ahaanin lahu ilaahay uma ahaanin kufuwan wax aynigiisa axadun ruux keliyana ha noqotee ilaahay wax u kuf ah oo awood iyo ilaahnimo kula tartama ma jirta ayuu ilaahay isku sifeeyey tabaaraka wa tacaala suuraddan waxaa la yidhaha suuratu masad